سؤال عمر وأنا هي مع سند عبد العزيز هي هاي سام إنه رهبل ورك كينا شكل هو ما أنت اللي يشكي يعني اللي يشكي هالكومة شكلها مد البحر اليوم هو مش شكل البحر مش شكل جونيا شكل هو وحكون هذا يشكي هاي واحد قولي أنا أدورنا وحاسنا وشكي عنها مايا أديك كان رواية يشكي سام هو أنا عايزني ما دام أديك برامج سعودي يا ريمانتي مركو حنروي ما دام ما دشي نعوض سوكمي إنا برشكو يشكي سام si asxaabta YouTube-ka iyaga ku xiran Gidar channel-na ay inoo dhageystaan hay adiga taa su'aal kale sidaan ku weydiin ka war ma su'aal kale sidaan ku weydiin سؤالك هذيك مرة ma sheekan hore sheekan ii sheekay شكاها درس sheekada niyo سؤالك هذيك hadaba ana ii sheekaynayo hayna sheekada nin kamid ah raggii hore di barisamaadkii dadkii joogi jiray yaa maalmaha kamid ah halka foolunta اللي يجيش كي وقاعد بين يرون واحد هاي مكان أصحابته شو كحرن الجنال كقاركود هل ما قرنا شو واحد الموقف يصير جيل الله سوف نطي سيفيا هاشي بوسور هذه سيفيا كيدي بوسور قاضي سيفيا سيدو بوسور سعودي ودني بقى الله وديك النقط لما ودني هاشوي قادالي سيفيا ودني ودو صوتو دوتي شاف وقشت سيفيا ودني كانوا كسعود وكدمات markay ka dhamaatay iyo tii kala fidsada tii kala intuu jeebka kala soo baxay wadada fidsada markuu muddo socday ayaa wuxuu fuulay geed si hashu ugu bidhaamiyo geed dheer buu fuulay hashu uu arki waayay dhaciso markuu hashi arki waayay wuxuu sameeyay waran buu watay warankii uu soo qaatay ishiisii buu bixiyay si uu ugu bidhaamiyo kor buu u qaaday hashi oo wuxuu arkay cunug yar dhashay oo meel fog joogto سيفيا markuu bishiisi bixiyay oo warankii uu ku bixiyay uu ku bidhaamiyay oo arkay ninka geedkii uu ka soo degay hashi uu aaday hashiisi uu tagay hashi uu damcay inuu liso caano ka liso uu lisi waayay markaas hashi caano ka waayay markaas caano ka waayay wuxuu lisay cunug yar ka dhashay cunug ka listay cunug laftirkiisa caano ka listay marka saa isku qawana sheeka ma yaa horta sheekada ku dhamay markuu caano ka listay waa soo baxay ninkii hashi uu damcay inuu cunugu u qaado maadaama cunugu uu yar yahay markuu geela markaas dhabo waa loo soo qaadaa oo xeradii iyo cunugu uu damcay inuu u soo qaado hashi cunuga qaadid buu cunugu uu qaadi waayay hashi uu soo qaado marka hashi uu soo qaado uu soo baxay meel dhex markuu marayo ayaa wuxuu u imaaday saakay dhiiluu watay oo xogaa sahay caana uu ku watay oo geed uu subtay buu yiri bal dhiishaada ku leexo bal ka siiyay dhiishiyo wuxuu u imaaday aboor uu cunay buu imaaday aboor dadku garanaya ma qaybi markay uu dhiishiyo aboor uu cunay uu imaaday wuxuu arkay caanihii keligooda meesha soo سيفيا caanihiisii iska cabidday intaasan sheekada ka hayaa waxaan laga yaabaa asxaabta qaar maaragtay inay horay u maqleen laga taariikheeyay cumar maqlay nin aan ilmo adeer ahayn baa taariikhdaas ka sheekeeyaa la yiri kolley qudhiisu laga yaabaa intuu ka soo maqlay magaalooyinka uu ka sheekeeyay laakiin nin baa la yiri maxaa inta adduunyo joogtay ugu la yaabadnaa marka maalintaas ayaa ay soo martay buu yiri maalintaas ay la yaabadnay marka anigana sheeko aan maqlo sheekadaas ayaa ay la yaabadnay maxaad haysan سؤال ما كان فرنت تاسنا كاوي ma igu weydiin kartid maxaa yeelay anigu ninkii sheekada waxaan isqabanin waan maqla maadaama aad idin imaaday oo idin ka codsaday inaad ii sheekaysaan oo ii sheekayn weydeen waxaan idinkugu furfuray mid ka mid ah waxyaabihii ila yaabka badnaa ee aan maqlay hay maxaa haysan soo daayay markii bil waxaa fadhiya barnaamij soo tabiyaha fikir waa Cabdicasiis Cabdullaahi adigana maxaad inoo haysaa maanta هل شيكان إذن كوجو دري دونا واحد في عن وضع شكيسين أو شكوي النحر له أو واحد بدل لقى ده هنكره أو عشرة دروس لقى لبي حكره إيو خبرة ده واحد شيكان وحي دهن تولا يا حكوت علي هل عيل بكوت علي تولا دن بلقى عبيتي هل عيل هذا هل عيل دتك كل تولا دكان هل كاس عيل بيبي وصوت أنت صح مالك لا أو بيا لقى عبد ملها وحد عليه بقى اللي عيل كي ودانتي اللي ورد عيلك أو سبي الله قصة ضربة واقعة حرقي بقى حرقي بقى وابا كل عايز ها
qofkii sidoo xarig usoo jiidana xarigii eber u haleeya muddo yaa sidaas lahaa dadkii yaabeen maxaa ceelka ku jiro qaar waxay dhaheen jinni baa ku jiro qaar waxay dhaheen bahal baa ku jiro hal soo ogaada la yiri wax ceelka ku jiro laakiin cidda ogaanaysa la rabaa baa la yiri qof baa waxaa loo ballan qaaday in wax alla wuxuu rabo la siin doonaa haddii shardi inuu gala ceelka uu soo ogaado wax meesha ku jiro nin baa wuxuu yidhi anigaa galaa waa lagu baahan yahay la yidhi soo dhowo wax alla waxaad rabtidna sheego waxba xoole inkagama baahni buu yidhi wax shardi ah hal xabaan ka dhigan buu yidhi soo daa baa la yidhi waa lagu samaynaya wuxuu yidhi ceelka waan geli laakiin waxaan rabaa buu yidhi ninka walaalkay oo hebel ah inuu dadka ceelka xarigga aan ku galaayo hayo inuu ku jiro shardi buu ka dhigtay markaas waxaa la yidhi waa inta lagu qoslo waxaa la yidhi dad fara badan oo ka xoog badan walaalkaa baa jira dadkaasaa loo dhiibay walaalkaa naga daa markaas wuxuu yidhi maya waa shardi walaalkay in la helo walaalkaa meelahaasuu jiraa maya hal keeno walaalkii baa la raadiyey waa la keenay maalinkii la ballamay yaa ceelkii ninkii lagu rida inta xariggii loo qabtay markuu ceelkii galay ninkii wuxuu ugu tagay daanyeer meesha daanyeerkii buu soo qaaday madaxii buu soo saartay xariggii buu soo qabsaday dadkii bannaankay taagan yihiin suu u soo waday markii afkii u maraay yaa dadkii kulli inta cabsoodeen waxaan jinni u maleeyeen iyo xarigii usii wada daayeen oga wada fuqeen daanyeerkii bay arkeen wejigii ilaa hal nin walaalkiis xariggii uu ku dhignaada si dhib leh yuu ninka ku soo bax bannaanka walaalkii darteed walaalkii oo caawinaa dadkii kalena waa kala carareen markuu bannaanka qof u taagnaada waa la waayay ilaa walaalkiis marka wuxuu yidhi markuu soo baxaa wuxuu yidhi hadda ma ogaataan buu yidhi sababta aan shardiga ooga dhigtay in walaalkay xarigga uu yahay dadka kulli hadday iga cararaan buu yidhi nin hooyadaa dhashay ma kaa cararaa yidhi macno badan baa ku jira meeshaas waxaa ku jiro qofka walaalkaa marnaba inuusan meel si fudud kaaga tegaynin mar walbana uu garabkaaga yahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajeynaynaa inay garab isku noqdaan oo ismaha dalkooda ay ka qayb qaataan qof walba wuxuu qaban karo qof walba naftiisa hadduu horumariyo cid walba oo horumar ka shaqaynaysa ama wanaagga ummadda ka shaqaynaysana garab lagu siiyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin barnaamijkaygii toddobaadkan intaas ayaan kusoo afmeeraynaa waa bahda Gedo channel oo idin leh intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmi doono السلام عليكم ورحمة الله وبركاته